wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha geeska Afrika banaanbax looga soo horjeedo heshiisbeenaadka Muuse Biixi oo la galay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ka dhacay Muqdisho madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa xil ka qaaday wasiirka caafimaadka maamulkaasi mid kalena waa u magacaabay hay'adda maareynta masiibooyinka ayaa sheegtay in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaano hoostaga magaalada Marke ee gobolka Shabeellada Hoose jaariyadda Soomaaliyeed ee UK ayaa war ka soo saaray heshiisbeenaadkii ay galeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo Muuse Biixi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa ka qayb galay munaasabad xilalka ay ku kala wareegayeen madaxweyne ku-xigeenkii hore iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee Puntland howlgal ay ciidanka dawladda Soomaaliya ka sameeyeen deegaano kamid ah gobolka Baay guud ahaan warka TV-ga Hilaac baa naga intaa